الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدوميها برلمانك قدومية كحجينada xildhibaanada dowladda federaalka wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ciyaartooyda koonfur galbeed dhalinyarada reer koonfur galbeed saxaafadda fanaaniinta janawkay iyo cid kasta oo xafladdan ka soo qayb gashay maqaamka ay ku fadhiyaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaan sharafay ii tahay caawa inaan isugu nimaano xafladdan casho sharafta ah oo aan ku weyneyneyno oon ku soo dhaweyneyno oon ku abaalmarinayno oon ku ixtiraamayno ciyaartooydanadii qiimaha badnayd ee reer koonfur galbeed xaqiiqatan marka laga hadlayo ciyaartooyda waxaan isweydiin lahayn oo nin kasta oo reer koonfur galbeeda ama soomaaliya joogo in ama adduunkaba joogo oo ka shaqeynayo in ciyaartooyda reer koonfur galbeed ay ammaan mudan yihiin ayna muujiyeen ciyaar wanaag samir mustaqbal fiican iyo wax lagu farxo oo dadka reer koonfur galbeed ay aada ugu farxaan ay muujiyeen waxay ahayd ciyaaraha waxa loogu talagalay waa waxyaalaha ugu muhiimsan caafimaad ahaan iyo isdhexgalka bulshada iyo wada noolaashaha dadka iyay qeyb ka tahay marka markii aada dirsato tiam ciyaartooy ah oo ay adiga kuu maqan yihiin waxaa lagu gartaa waxa ay kuula soo noqonayaan marka waxaan ku ammaanayaa ciyaartooydanada guusha iyo koobka in la keeno waa xikmad kale oo rabaani ah laakiin sidii loo diray iyo tababarkii la geliyey iyo dhiirigelintii iyo waqtigii badnaa oo loo suubiyey runtii waxaan aaminsanahay inay ka soo baxeen annagana aan habeenii maalin u taagnayn inayna matalaan waxaa intaas dheer oo dadka dhan ay la yaabeen taageeradii ugu badnayd ee koox sportis ah dheesho la taageero kooxda koonfur galbeed ahayd kooxda ugu taageerada badnayd meel walba oo adduunyada waa la yaabay marka si gooni ah waxaan ugu mahad celinayaa dhalinyarada reer koonfur galbeed oo taageerayaalka ciyaartooyda ahaa oo taageerayay koonfur galbeed oo taageerayay calankooda oo taageerayay systemkoodii dowladooda oo taageeraya ciyaartooydooda oo aan dareemi karo inay dhibaato badan ay usoo mareen taageerada ama waxyaalo badan ay ka soo gaareen marka si gooni ahaan rabaa inaan ugu mahad celiyay taageerayaashii iyo dadkii abaabulay iyo dhalinyaradii ka shaqaysay iyo kulligoodba intii wax kusoo gaartay ciyaartooyda iyo taageeradaba waxaan leeyahay ilaahay idinka caafiyo waxay ahayd cayaar fiican iyo wax aada loogu farxo runtii waxaad soo gaarteen meel ciyaartooy badan ay soo gaari weysay siduu wasiirka sportiska sheegaya waxaad soo gaarteen stagekii ugu dambeeyey kii ku xigay haddaa mar samafinaalka timaadeen waxa idiin harsanaa waa inaad finaalihii timaadeen waxaa laga fikirayay marka waxay ahayd ma koonfur galbeed baa qaadi doonto ma kuwaasaa qaadi doono ma kuwaasaa qaadi doono marka waa la sheegay cayaarta iyo koobka qaadistiisa waa caddaan iyo madow waayo guusha waa iska nasiib laakiin waxaa xaqiiqo ah oon aada ugu faraxsannahay
nin kasta oo reer koonfur galbeedna uu ku faraxsan yahay, maamulka annagana ay ku faraxsan yihiin, cayaartooydii aan dirsanay inay matalaad dhab a sameeyeen, cayaar lagu farxi karana ay keeneen. hadduu ilaahay yidhaahana waxaan rajaynaynaa in sanadkan sanadka ku xigo aad keeni doontaan koobka, aana sii wadi doono dhiirigelinta iyo ciyaartooyda dhismahooda iyo tababarkoodana la sii wadi doono. si ay taas u suurto gasho waxaan diyaarinay oo mar dhow noo dhammaan doono insha allahu dhismihiisa uu socdaa garoonkii weynaa ee doctor ayuub, oo aan ka soo saari doono garoon caalami ah oo kan garoomada ugu fiican soomaaliya kow ka noqon doono, sida ugu dhaqsaha badanna loo dhammayn doono insha allah. meeshaasaa noqon doonto meesha tababarkiina iyo ciyaartiinaba ay noqoto, oo aan ku furi doono cayaaraha gobolada koonfur galbeed lagu qaban doono, cayaaraha degmooyinka koonfur galbeed lagu qaban doono. diyaargarow badan iyo waqti badan ayaan gelin doonaa insha allah. sidaasoo kale saan hore u sheegay, cayaartooyda markii aan ka shaqaynay in aan u diyaar garowno, nasiib wanaag waqti fiican baan ku baraarugnay, waqti badanna nagama dhumin, dadaal badanna waa la suubiyey, dowladda xukuumadda dhan ay u istaagtay, runtii wasiirada oo dhan meel kasta ay joogeen oo xukuumadda ka tirsanaa. saa horey loo sheegay boqolkiiba 100 waxay ahayn dhalinyaro, waxay u istaageen inay dhiirigeliyaan sportiska, waxay u istaageen inay waqtiga yaroo dhiman uu nin walbaba kaalintiisa uu ka qaato si ay guushii la rabay ay u gaaraan. marka intay hawshaas socotay iyo diyaargarowgii runtii muddo gaaban bay ahayd, laakiin way ka muuqatay awooddii iyo xooggii iyo diyaargarowgii iyo sidii dhammaystirnayd oon ugu wada dhammayn cayaarta way ka muuqatay oo way ka soo baxday, waa ka soo baxdeen. haddii marka aan samayno diyaargarowga annaga uu hadda ka bilowdo, oo maalinta cayaarta la aadayo uu ku ekaado, waxaan aaminsanahay in koobka la keeni doono insha allah. cayaartooyda sidii aan horeyba ugu ballan qaaday, waxay mustaqbalkoodaan ballan qaaday marka cayaaraha ay aadayeen, dowladda koonfur galbeed ay ballan qaaday, horeyna waa u sheegnay, haddana waa ku celinayaa. waxay ka mid yihiin shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed, waxay ka mid yihiin shaqaalaha wasaaradda dhalinyarada iyo sportiska, waa xulkii koonfur galbeed. waxay leeyihiin xaquuq, waxay leeyihiin mishaar, waxay leeyihiin ka warqab, waxay leeyihiin daawo, waxay leeyihiin la socod insha allahu tacaala. intaba anaa ballan qaaday dowladda, waana helaysaan xaquuqdiina hadduu ilaah yidhaah, mishaari baa noqonaysaan. sidaasoo kale waxaan si gooni ah ola socon doonaa inaan tababaradiina iyo aqoon kororsigiina iyo sidii cayaartooyda ay isugu xirnaan lahaayeen oo aalmintadoodii iyo cayaarahooda usii wadan lahaayeenna wasaaradda ka shaqayn doonto, annagana waa kor joogtayn doonaa insha allahu. sida uu sheegay wasiirka maxamed cabdicasiisaa sheegay, marka ugu horeyso oo isbartiibada la furo, kooxda ugu horeyso dheelaysa anigaa ku jiri doona insha allah. inaan cayaartooy ahay in kala arki doontaan. markii la ciyaari jiray dadka cayaaraha ugu fiican baan ahaan jiray, markii still young weli waa ciyaari karaa. marka waxaan u dheeri doonaa hadduu ilaahay yidhaaho, adinka dhan waana fiirsan doontaan. kooxan ani hogaaminayo oo xukuumadda ah iyo koox uu guddoomiyaha hogaaminayo oo baarlamaanka ah. baarlamaanka iyo xukuumadda lagu tijaabinaa marka koobka ninka qaado, markaas kadib way ciyaaraha kala bilaaban doonaan. aada iyo aada u mahadsantihiin tababarayaashii, macalimiintii, cayaartooydii hore, iyo in kasta iyo qof kasta oo garab istaagay sportiska. waxaan uga mahad celinayaa dadaalkii dheeraha uu geliyey. mana dhammaanin, waa wadaynaa, waana la joogteynayaa sidii
aan sportiska u xoojin lahayn, waxayna noo tahay waxyaalaha arrimaha bulshada lafdhabarta u ah. marka aadan u dhiirigelin doonaa insha allahu tacaala. sportiskana gacantaan ku hayn doonaa. cid kasta oo ka shaqaysay iyo cid kasta oo nagala shaqaysayna aada iyo aad ay u mahadsan yihiin. dhalinyarada sportiskana aadan ugu mahad celinayaa. si gooni ah macallinka tababarahoodan u mahad celinayaa. cayaartooyda dhan waxaan si gooni ugu mahad celinayaa goolkeemihii cayaartooyda oo runtii difaaca ugu fiican ahaa. marka cayaarta saan u cayaarayseen waxay u baahnayd keliya dhammaystir, laakiin cayaarta difaaceeda iyo dhexdaba waa fiicnaa. insha allahu inta dhimanna waa la dhammaystiri doonaa hadduu ilaahay yidhaah. sidaasoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyaradii mar labaad iyo mas-uuliyiintii taageerayaalkii habeenii maalin taagnaa. aada iyo aada u mahadsantihiin adinkana. saasoo kale wasiiradii xukuumadda oo dee ugu horeeyo wasiirkii hore ee dhalinyaradii sportiska wasiir cali dhuux oo runtii hadda arrimo caafimaad ku maqan oo aada iyo aada qalbiga inkugu hayay, mar walbana ku jiray guushiina saa ku gaari lahaydeen. sidaasoo kale wasiirka cusub oo aan ugu talagalnay si degdega aan inkaga soo gaarsiinay inuu idiin dhiirigeliyo oo nin sportisna ah, shaqo badanna soo qabtay, oon aaminsanayn inuu aad ka heli doontaan wixii wasiir looga baahnaa. runtii waana gutay waajibkiisa, isagana aada u mahadsan yahay. sidaasoo kale wasiirada koonfur galbeed oo dhan oo hadda xilka hayo say usoo kala horeeyeen iyo say taageeradood u kala badnayd ba ayagana waa ku mahadsan yihiin, iyo xildhibaanada iyo dhalinyarada dhan kulligeed aada iyo aada u mahadsantihiin. xaqiiqatan sportiska saan hore u sheegay waxaa waaye lafdhabarta bulshada waaye. haday ururada bulshada laguu sheegayo wuxuu ka bilaabanayaa sportiska iyo dhalinyarada. haddii bini aadamka uu sportiska ka dhisan yahay, nolosha iyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo wax walbaba waa ka dhismaya. marka sharafay noo tahay. soo dhawaada. aada iyo aada u mahadsantihiin. waxaa keenteen guul, waxaa keenteen sharaf, waxaa u keenteen koonfur galbeed wax lagu faano, waxaa kor u qaadeen calankii koonfur galbeed. annagana sharaf iyo karaama idiin haynaa. hadduu ilaahay yidhaah inta idiin dhamanna waa laidin dhamaystiri doonaa insha allah. caawa waa habeen farxad ah, habeen siyaasadeed ma aha. stresski siyaasadda iyo qayladii iyo waa la keenay iyo waa la qaaday iyo waa la doortay iyo waa la dooranayaa iyo ma iga dhigtay iyo igama dhigin iyo waa ka nasanaynaa. mana rabno waxaas inaan ku mashquulno. maxaa yeelay waxaay inta joogo wejiyo fara badan oo farxad ku joogo dhalinyaro ah oo aanan waxaas ku mashquulsanayn, ee ku mashquulsan horumarka iyo nolosha iyo maxay ahayd dowladnimada. aanan ku mashquulsanayn wax siyaasaddan ila meereysada ah oo soomaaliya aanan hadda micno badan aan u helin. marka ma rabo maanta caawa inaan aan siyaasad iyo sheekadeeda aan ka hadlo. sidaasoo kale markii la yidhaaho dhalinyarada dadka reer koonfur galbeed 70% waa dhalinyaro waayo. jiilka dhalinyarada ugu badan soomaaliya haddii la yidhaaho waa dadka reer koonfur galbeed. waxaa ku ogaanaysaa meel kasta oo la tago soomaaliya ama meel kasta oo istaagtid dadka ka soo baxo dhalinyarada waxay noqonayaan dadka reer koonfur galbeed. annaga marka siyaasadda dowladdaanada waxaa waaye in dhalinyarada kor loo qaado, wax kasta oo bulshada dhexdeeda ahna laga qeybgeliyo ay qeyb ka noqdaan, oo iyaga hoggaan ka noqdaan, la koriyo, korna loo soo qaado, loona diyaariyo mustaqbalka maanta iyo kan beriba, oo ay qeyb ka noqdaan siyaasadda
iyo adeegyada bulshada oo dhan ay qayb ka noqdaan. si aan taas u fulino waa la socotaan tilaabo kasta oon qaadno 99% markii laga reebo odayaal waxaa jiro muhiim ahoo waxtar ah kulligood lagama wada tegi karo oo rugcadaa ah oo loo baahan yahay waayo aragnimadooda in laga faa'iidaysto. laakiin baarlamaanka koonfur galbeed, xukuumadda koonfur galbeed, garsoorka koonfur galbeed, saxaafadda koonfur galbeed, ciidamada koonfur galbeed, cid kasta oo reer koonfur galbeeda 99% waxaan go-aansanay inaan dhalinyaro ka dhigno oo aan dhiiggaas cusub aan gelino koonfur galbeed si loo helo maskax caafimaad qabto oo dhulkeeda u adeegayso oo dhiig cusub geliso, aanan ku mashquulsanayn, aanan xasuusnayn xumaanta iyo corruptionka iyo qaybinta iyo qabiilka aanan ku mashquulsanayn, ee aaminsan nin dhalinyaro ahoo wax soo bartay kuna soo barbaaray dalkiisa iyo dadkiisa inuu kor u qaado iyo deegaankiisa. micnaha ugu badan oon tiigsanayna marka kaas waa dhalinyarada. waana aragnay xaqiiqatan 2 sano oon koonfur galbeed ka soo shaqaynayo yaan arkay faa'iidadeeda iyo horumarkeeda. midnimada iyo wadajirka koonfur galbeed 2 sano aan ku soconnay oo wax walba ku gaarnay waxay ahayd dhiiggaas cusub iyo dhalinyaradaas sida fiican u fikiraysay oo xukuumadda iyo baarlamaanka lahayd. waxaan rajaynaynaa marka horumaro ka badanna inaan gaarno. waxyaalaha habeen iyo maalin nagulama ammaano oo ay nagu ammaanaan dadka Soomaaliyeed iyo doonarka iyo cid kastoo noo timaado oo adduunyada international community-ga ugu dambeeyay maanta wafdiga noo imaanayay waxay ahayd sida aan u shaqaynayno wanaageeda iyo horumarkeeda. dhalinyarada yaana mas-uul ka ah oo saldhig u ah oo ka shaqaysay oo keentay. marka waa gubaabinaynaa, waa bogaadinaynaa, waa dhiiragelinaynaa nin kasta oo dhalinyaro ahoo dalkiisa iyo dadkiisa wax usoo bartay oo muwaadin ah. waxaana rajaynaynaa insha allahu inuu xaqiisa ka helo dowladdiisa iyo dalkiisaba uuna u adeego yaan rajaynaynaa. way isa soo daba socotaa, mustaqbal fiicana muuqdo, shaqo fiicana soo socoto. ninka maanta aanan xilka haynin berri buu helayaa, kan maanta hayana wuxuu u hayaa walaalkii dadkiisii deegaankiisuu u hayaa, kan kale oo asagana saasoo kale mustaqbal kalena wuu helayaa. shaqadana waa badan tahay, xilalkana waa badan yihiin, wax walbana adinkay idin yaallaan. marka annagoo aqoontiina kor u qaadayno oo waxbarashadiina guubaabinayno dhiirigelinayno iyo haddana dhinaca kale wax soo saarkii iyo waxaan rabnaa inaan ayadana aan kor u qaadno hadduu ilaahay yidhaah. marka waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa oon aad iyo aad u soo dhaweynayaa dhalinyarada reer koonfur galbeed maskaxda fiican iyo jacaylka ay u qabaan dowladdooda iyo dalkooda iyo dadkooda dibad iyo gudahood. meel kasta oon tago oo ama Soomaaliya ah ama dibadda ah waxaan ugu tagaa dhalinyaro tiro badan oo aad iyo aad u jecel dowladdooda iyo dalkooda iyo dadkoodaba oo reer koonfur galbeed oo nin walbaba ku faraxsan shaqada aan hayno iyo horumarka aan gaarnay. meeshuu joogana aad ugu faraxsan, calankiina saas u hayo. marka sharafay noo tahay inaan waqtigaas iyo dadkaas aada u fiican aan hoggaan u noqono. runtii aadaan u bogaadinayo dhalinyarada, aada iyo aaday u mahadsan yihiin. dhalinyarada shaqada ay hayaan keliya intaas ma aha. waxaa jiro kooxda Janaawkay, waa aragteen, waa dadka fanka Soomaaliya ku jiro dadka ugu dhalinta yar waaye. runtii aad iyo aad baan u jecelahay Janaawkay, si gooni ah agaasime Ilyas oo aruuryaha iyo
isku duwaha dhalinyarada koonfur galbeed ah isagana waa mahadsan yahay. agaasime Ilyas sida aad dhalinyaradu u aruurisid meel walba ay joogaan iyo wax walba ay ka shaqeeyaan janaalku kaliix ma aha, adigana waa ku mahadsan tahay. mudanayaal iyo marwooyin, xafladdii caawa waxaan bilaabeynaa shahaado sharaf ciyaartoyda iyo la siinayo. farxaddii iyo reynreyntii intaanay noogu eg tahay. aada iyo aada u mahadsantihiin.